dilkani ayaa waxa uu ka dhacay goob laga raaco gaadiidka dadweynaha oo ku taala xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Biyaval xilli muwaadinka Soomaaliyeed oo ku sugnaa goob ganacsi oo halkaasi ku taalay waxaana dilkani geystay nin u dhashay dalkani Koonfur Afrika ka oo doonayay inuu dhac bareer u geysto muwaadinka Soomaaliyeed iyadoona ugu dambeyn uu laba toori kaga dhuftay madaxa kuwaasi oo u geeriyooday. Allah u naxariistay Cabdullaahi Axmed Khayr ayaa lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. markii uu aaska soo idlaaday ayaa TV-ga Universal waxa uu la kulmay goob jooga ku sugnaa halka uu dhibku ka dhacay ka oo murugo ay ka muuqatay. محمد حسن ماشي جوب جوجر كها أردت وحياة كلها تلافون كمشي يعني يو نن إنا وصل صقله وكشكي كل جذها ناقة جذها وصل دافتي نكى نمشي استاجي ناقتي وكمش حولي سجد سدينا نكى أصعد كبوب سنة تلافون كمشي يعني نسوارك نكى وكدوب بودي ولا انتو دايو قرب كساو تابتو بالتوري اسك سو جري halkaas uu dhuftay kolkaana meeshuu ku dhacay dhulkii. qaar ka mid ah dadkii aaska ka soo qayb galay ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim waxad inta Allah rahmado walaalkeen Cabdullaahi Axmed Khayr oo aan saayid u dirinayna anigana si fiican u diray Allah rahmado. Cabdullaahi Axmed wuxuu ahaa nin saaxiibkay gacan ka daran ayaa dishay waxaan leenahay Ilaahay ha waasiyo qadariisa aad iyo aad ayaan u xunahay falkiisa walaalkeen Cabdullaahi Axmed. bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkeen Cabdullaahi Axmed Khayr Ilaahay shala dunyada keena maantana ka ofsaday dhamaan family iyo wixii qaraabay wixii garanay ummad Soomaaliyeed sabar iimaan Ilaahay ka siiyay ninkaas ma soo laabanayo marka Ilaahay xaqiisa oo ahaaday ducaaduna ugu dadaalna Ilaahay insha Allah sabar iimaan Ilaahay naga siiyo. si kastaba ha ahaatee burcadkii dilka geystay ayaa gacanta lagu soo dhigay waxa uuna haatan ku sugan yahay xabsiga weyn ee lagu xiro dadka geysta dambiyada culculus iyadoona lagu wado in maxkamadna soo taago 17 bishan aynu ku jirno. dhanka kale gudoomiyihii Somali Community Board oo ka mid ahaa madaxda jaaliyadda dalkani Koonfur Afrika Muuse Muday Afrax ayaa burcad hubaysan waxa ay ku dhaawaceen goobtiisa ganacsi waxaana haatan lagu dabiibayaa isbitaalka Tegaberg ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. mar aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu ii xaqiijiyay in xaaladiisu ay ka soo reynayso. وكان كده طعام تجاري ماشي شد حبالات الرسول حبالات ولا بعدين لما طلعت وقت تطي وتدخل في حافظة صوبان عشان حرام ما يروي يعني ده مش ترى مقدس وقرت عبده حقيقة قاعد دعين مركه ما بركة ضمني صوت ما كان ما طبيعي حاجة الله يحمو وافي على الموافقات عاد كده موافقات مشهور. حسن كافي محمد شيري تلفزيون عالمي Universal مقالة Cape Town.